wuxuuna golaha u qaaday tallaabadii ugu horreysay iyadoo weli ay taagan tahay qaylada mucaaradka. kulan wacan. golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ah ku yeeshay magaalada Muqdisho, kaasoo uu gudoomiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, waxaana goobjoog ahaa inta badan xubnaha golaha. shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa go'aan looga gaaray sharciyo taabanaya doorashooyinka soo socda oo la rabo inay noqdaan qof iyo cod, wuxuuna golaha u qaaday tallaabadii ugu horreysay iyadoo weli ay taagan tahay qaylada mucaaradka. xubnaha golaha wasiirada ayaa si buuxda u meelmariyey sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada, kaasoo bilow ah qorshaha madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu haatan ku doonayo inuu ku qabto doorasho qof iyo cod ah. labadan sharci ayaa sidoo kale la horgeyn doona baarlamaanka Soomaaliya si uu u ansixiyo, laakiin waxaa taagan dood xooggan oo caqabad ku noqon karta qorshaha Villa Soomaaliya ee ku aadan maalmarinta shuruucdan oo fure u noqon doona doorashada. caqabadaha ugu weyn waa xubnaha xildhibaanada garabka mucaaradka oo muddooyinkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa indhaha la iska tiri karin qaylo dhaanta siyaasiyiinta mucaaradka oo mar hore ka furtay Xasan Sheekh. dhinaca kale waxaa shirka golaha wasiirada lagu soo qaaday xaaladda guud ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan ammaanka, iyadoo warbixinno laga dhageystay wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga, kuwaasoo ka hadlay amniga guud ee dalka iyo dagaalka lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab ee ka socda qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. xubnaha golaha wasiirada ayaa si weyn u bogaadiyey guulaha ay ciidanka Soomaaliya ka gaareen sifaynta kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan guulihii laga gaaray dhinaca Jubbaland. dhanka kale, warbaahinta Soomaaliya ayaa ku soo warramaysa in si weyn loo adkeeyey amniga xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho kadib markii ay soo baxeen digniino ku aadan weerar horley oo qorsheynayaan kooxda Al-Shabaab. ciidamada ammaanka, gaar ahaan kuwa ilaalada madaxtooyada, ayaa xalay bilaabay dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ku sugayaan amniga xarunta Villa Soomaaliya iyo agagaarkeeda, cabsi laga qabo weeraro ay Al-Shabaab ka geysan karaan halkaas. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ciidamada xalay ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen dhammaan waddooyinka gala xarunta oo ay degan yihiin madaxda ugu sarreysa ee dalka Soomaaliya, waxaana inta badan gaadiidka iyo dadweynaha laga celinayay aagga madaxtooyada maadaama ay feejignaan ku jiraan ciidanka amniga. sidoo kale ciidamada ayaan oggolayn in gudaha loo galo dhismaha madaxtooyada ama in laga baxo ama in laga soo baxo, waxayna dadka ku wargelinayeen inuu jiro amar guud oo lagu xadidayo dhaqdhaqaaqyada laga samaynayo aagga Villa Soomaaliya. sababta ugu weyn ee arrintan loo samaynayo ayaa ah kadib digniin ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay mar kale weeraro ka fulin karto gudaha caasimadda, gaar ahaan baraha kontarool ee laga ilaaliyo madaxtooyada, hoteelada caasimadda, baraha kontarool ee kilomitir 4 iyo xeebta Lido. qaramada midoobay waxay sheegtay in ay heshay digniin cusub oo ku aadan in magaalada Muqdisho ay ku jiraan ilaa 5 gaari oo ay ka buuxaan walxaha qarxa, isla markaana la qorsheynayo in lagu fuliyo weeraro cusub. xafiiska qaramada midoobay ay shacabka uga digay inay tagaan goobahaasi oo ay sheegtay inay suurtagal tahay in maalmaha soo socda ay beegsato kooxda Al-Shabaab. fariintan digniinta ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in xafiiska ay waajib ku tahay inuu mar kasta soo gudbiyo dhaqdhaqaaq kasta oo shaki abuuri karo si looga digtoonaado. jimcihii la soo dhaafay ay ahayd markii weeraro xooggan oo lagu hoobtay ay kooxda Al-Shabaab ka fulisay xeebta Lido ee magaalada Muqdisho, kaasoo lagu laayay dad badan oo shacab ah, una badnaa dhalinyaro ku caweynayay halkaasi. waxaa sidoo kale ka horreeyey weerar kale oo lagu beegsaday maqaayadda Top Coffee ee degmada Boondere, halkaasoo iyana lagu laayay dad badan oo aan waxba galabsan. bismillaahi raxmaani raxiim. golaha xukuumadda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ee Khamiis walba oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha mudane Xamse Cabdi Barre
ayaa waxaa lagu ansixiyey laba xeer oo mudnaan gaara u leh dadka iyo dalka Soomaaliyeed. labada xeer waxa ay kala yihiin xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda uu dalku yeelan doono. labadan xeer ama sharci waxa ay hagi doonaan hanaanka doorashooyinka dalkeena Soomaaliya uu yeelan doono. xeerka doorashooyinka qaranka ee maanta goluhu ansixiyey waxa ahmiyad weyn u leeyahay dalka iyo dadka sida aan hore u sheegay. sababtuna waxay tahay maadaama taladii dib loogu celinayo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan hogaamiyaashii matali lahaa ummadda Soomaaliyeed. marka xeerka doorashada waxa uu wadanka u jiheynayaa doorasho qof iyo cod ah oo dalka oo dhan ka dhici doonta. waxa uu xaquuq siinayaa xeerka maanta goluhu ansixiyey in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu u codeeyo cidda uu doonayo inay hogaamiso, kaasi oo runtii ah qodob dastuuri ah. haddaba xeerarkan muhiimka ah ee doorashooyinka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee xukuumadda maanta ay ansixisay waxa dalkeenu ay ka gudbinayaan nidaamkii hore ee doorashooyinkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalayay muddo dheer. waxaana loo guurayaa hanaanka doorashooyinka dadweynaha ee dimuqraadiga ah ee qof iyo cod oo muwaadiniinta Soomaaliyeed awoodda siinaya inay iyagu wax doortaan, taasi oo runtii Soomaaliya ay ugu dambeysay muddo hadda laga joogo 55 sano. marka waa maalin taariikhi ah oo golaha xukuumadda ee uu hogaamiyo mudane Xamse Cabdi Barre ay si aqlabiyada u ansixiyeen labada xeer ee kala ah xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalkeenu uu yeelan doono.